بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan bilaabi doonaa casharkeenii ugu horeeyay ee casharada xanan noo ahaa doona oo ku saabsan cilmiga statistics-ka ama maadada statistics-ka. waxaan qaadan doonaa maanta an overview of basic statistics, dulmar guud oo ku saabsan aasaaska cilmiga statistics-ka. casharka maanta waxaa soo jeedi doona aniga oo Awas Abdulla Xirsi oo istimcade. waxaan ku bilaabanaynaa casharka xigmad nin statistician oo England u dhashay oo yiri, ninkaas oo lagu magacaabo Carl Pearson. wuxuu yiri statistics is the grammar of science. Statistics-ku waa naxwaha cilmiga. halkaas taa ugu soo gudubna xigmadaas ku saabsan statistics-ka, taas oo aan ula jeeday soo qaadashadeeda dad badan oo xoogaa cilmiga statistics-ka perception khaldan ka haysta inaan yara u iftiimiyo. sidoo kale waxaan rajeynayaa dadka statistics-ka aan aad u fahansaneyn in casharadeena taxanaha haday ku xirnaadaan insha Allah aad u fahmi doontiin statistics-ka iyo waxa loola jeedo iyo waxa uu qabto iyo muhiimadiisa iyo sababaha loo barto. waxaan uga hadli doonaa insha Allah casharkeena. waxaan rabnaa inaan galno chapter outline wax loo yaqaano ama se tusmooyinka iyo waxyaabaha uu ka hadlayo cutubkeena. waxaan rabnaa chapter-kan inaan uga hadalno 6 qaybood ama 6 section inaan uga hadalno. 6daas qaybood oo uga hadli doono waxay kala yihiin qaybta ugu horeysa 1.1 waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano origin of statistics, asalkii cilmiga statistics-ka. sectionka labaad ama qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa 1.2 definition of statistics, qeexitaanka cilmiga statistics-ka. qaybta ku xigta oo 1.3 waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano types of statistics, qaybaha uu kala baxo cilmiga statistics-ka. qaybta afraad 1.4 waxaan uga hadli doonaa importance and scope of statistics, muhiimada uu leeyahay cilmiga statistics-ka iyo culumta kale oo uu la xiriiro ayaan uga hadli doonaa. sectionka shanaad waxaan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano ama 1.5 limitations of statistics, xadidaada ama meelaha uu ku xadidan yahay cilmiga statistics-ka ayaan ka hadli doonaa. sidoo kale qaybta ugu dambeysa 6aad waxaan uga hadli doonaa wax loo yaqaano why should you learn statistics, sababta ay tahay inaad u baratid statistics-ka. marka casharkeena maanta waxaan uga hadli doonaa 3da hore 1.1 up to 1.3, 1.4 up to 1.6 na insha Allah cashar kale ayaan uga hadli doonaa. labadaas qaybood ayaan kala qayb doonaa insha Allah. waxaan galeynaa ahdaafta aan u baranayno wax loo yaqaano learning objectives, ahdaafta aan u baranayno chapter-kan ama waxyaabaha laga rabo upon completion of this chapter you should be able to. markaad chapter-kan dhameysid waxaa laga rabaa inaad fahansan tahay ama awood u leedahay know the origin of statistics, inaad taqaanid asaaskii ama asalkii cilmiga statistics-ka. discuss the two interpretations of the term statistics, inaad ka doodi kartid ama se qeexi kartid ama taqaanid labada micno ama se labada soo bandhigid ee uu leeyahay statistics oo kala ah statistics as a numerical data, statistics oo loo fiiriyay hab yani xog number ahaan statistics oo loo fiiriyay, iyo statistics-ka qaybta labaad oo ah statistics as statistical methods, statistics-ka oo loo fiiriyay habab ama se hababka statistics-ka ay ku shaqeyso loo fiiriyay. yani labadan qaybood ayaa laga rabaa inaad si fiican u kala taqaanid. insha Allah casharka inta ku guda jirno ayaana si fiican uga doodi doonaa, laakiin markaan chapter-ka dhameyno waa inaad taqaanaa labadan kala duwanaanshahooda iyo micnayaashooda inaad kala taqaanid. sidoo kale waxyaabaha laga rabo chapter-ka markaad dhameysid waxaa kamid ah understand types of statistics, inaad fahmi kartid ama taqaanid qaybaha uu kala baxo statistics-ku. waxyaabaha laga rabo sidoo kale casharka inaad markaad chapter-kan dhameysid aad si fiican u taqaanid waxaa kamid ah explain the applicability and use of statistics in various diverse fields, in aad taqaanid ama qeexi kartid ama sharixi kartid isticmaalka statistics-ka ama sida statistics loogu isticmaalo field-yada kala duwan, qaabka loogu isticmaalo iyo sida loogu adeegsado inaad taqaanid. sidoo kale inaad understand various limitations of statistics, inaad fahansan tahay xadidaadaha kala duwan ee uu leeyahay cilmiga statistics-ku. aan bilaabno qaybta ugu horeysa introduction, meaning and scope. qaybta ugu horeysa aan bilaabayna oo ah origin of statistics, asaaskii cilmiga statistics-ka.
marka insha Allah isku dayna ana si guud u akhrino aasay maadaama Soomaali nahay inaan Soomaali ku akhriyo isku day doona insha Allah marka saas ila socda waxaan leenahay statisticsku wuxuu u weyn yahay ama u da' weyn yahay sida bini'aadamku ama se bini'aadamka jiritaankiisa u weyn yahay yani marka bini'aadamka bilowgiisa ilaa hadda statisticsku wuu jiray laakiin yani dadka fahamkooda iyo statistics as cilmi ahaan in loo fahmo ayaan jirin mahana laakiin way jirtay statistics sababtoo ah meel kasta oo activity bini'aadan uu jiro waxa taalo hadiiba la diiwaan geliyo waxa taalo xog ama data wax loo yaqaano meel kasta oo xog laga helana waxa laga helay ama si taalo sidoo kale statistics sida darteed maxaa leenahay statisticsku waxay u weyn tahay ama u da' weyn tahay sida bini'aadamku uu da' weyn yahay ama si uu bini'aadamka jiritaankiisa u weyn yahay oo kale maadadan asalkeedii waxa dib loogu celi karaa maalmihii hore markaas oo loo tixgeli jiray statisticsku inay tahay cilmiga maamul wanaaga ama se cilmiga wax loo yaqaano xirfad u maamulida arrimaha dawladda waxa loo yaqaan science of statecraft waxa loo yaqaan ayaa loo aqoon jiray xilliga hore ama loo tixgeli jiray wuxuuna ka imaan jiray howlaha maamul ee ay dawladdu qabato ayuu ka imaan jiray erayga statisticska waxa laga soo min guuriyay eray Latin ah oo ah macnihiisu eray Latin ah oo loo yaqaan status ama se eray Talyaani ah oo ah statista ama se eray German ah oo sidoo kale loo yaqaan statistic erayadaas oo dhamaantood mid kasta macnaheedu uu yahay dhamaantood ay macnaheedu isku mid yihiin oo macnaheedu loola jeedo wax loo yaqaan political state ama se siyaasadda dawladda xilliyadii hore statisticska waxa isticmaali jiray ama ku koobnaa jiray bis dawladda bis ayuu ku koobnaa jiray ama dawladda kaliya ayuu ku koobnaa jiray waxayna aruuri jireen information ama se xog la xiriirta populationka dadka markaas dawladda hoos imaada populationka intuu ka kooban yahay faqrigooda ama se lacagta ay haystaan wealthigooda heerka ay marayso dakhligooda dadka tusaalaan heerka uu marayo si ay u ogaadaan dadka shaqeynaya ama se shaqada diyaarka u ah sidoo kale waxyaabaha ay ka saacidi jirtay xogahaas dawladda waxyaabaha ay ka saacidi jirtay wax kamid ah in ay dejiso siyaasaadka ama se hababka ama sida looga qaadayo canshuuraha laga qaadayo ayay ka saacidi jirtay inay dawladda markay xogtaas ay hesho populationka iyo povertyga dadka dawladda faqrigeeda iyo wealthiga dadka kale markay macluumaadkaas ay ogaato waxay ka saacidi jirtay in ay ogaato dadka shaqada diyaarka u ah sidoo kale inay dejiso wax loo yaqaano taxeska si lacagaha laga qaadayo canshuuraha laga qaadayo iyo waxyaalaha lamidka ayay ka saacidi jirtay iyo waxyaabo badan oo kamid ah hadda tusaale aan soo qaadan kuwaas intaas bis okay waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaan qaybta labaad ee definition of statistics wax loo yaqaan qeexitaanka cilmiga statisticska ayaan ka hadli doonaa marka statisticska qeexitaanadoodu waxa qeexay qorayaal kala duwan ayaa qeexay waqtiyaal kala duwan ayaana qeexeen sababta marka keentay kala duwanaanshaha qeexidda gundhig waxa u ah laba qodob ayaa u ah asaas u ah qodobka koowaad waxa waaye in waqtiga casriga ee aan joogno faa'iidada ama se faa'iidada uu leeyahay cilmiga statisticsku ay aad u balaaratay waxaan leenahay xilliyadii hore statisticsku waxay ku koobnaa jirtay arrimaha dawladda bis ay ku koobnaa jirtay laakiin hadda statisticsku waxay gashay meel kasta oo ay ka jirto yani shaqo bini'aadam ama se hawl bini'aadam meel kasta oo ay ka jirto statisticskuna way gashay ama way ka jirtaa sidaa darteed waxaan leenahay tiro qeexitaano ah kuwa oo ku koobnaa ama se yani field aad u kooban ku koobnaa jiray ama ka hadli jiray ayaa waxa bedelay definition cusub ama qeexitaano cusub ayaa bedelay kuwa oo ah kuwa aad u dhameystiran ayaa bedelay waxaan rabnaa qodobka labaad oo statisticska definitionadiisu ay u kala duwan yihiin ama se qaabka loo qeexay ay u kala duwan yihiin waxa waaye in statisticska loo qeexi jiray ama loo qeexo laba hab statisticska ama statisticska si guud waxa la dhahaa wuxuu leeyahay laba macno qaar kamid ah qorayaasha statistics waxay u qeexaan as statistical data waxay u qeexaan qaab xog statistic ahaan ay u qeexaan oo tusaale waxa loo qeexaa qaab ah numerical statement of facts waxa loo qeexaa qaab tirooyin xaqiiqi ah ayaa loo qeexaa halka kuwa kale ee statisticska u qeexaan qaab loo yaqaano
statistical methods habab statistics ama hababka uu statisticsku maro markii la aruurinayo xog ama se la analyze gareynayo xogta noocaas ah hababka uu maro ama principleska iyo techniqueska uu maro ayay u isticmaalaan taasoo ah field statistics qaybta dambe oo statistical methods waxa loola jeedaa cilmiga isla field statisticska halka qaybta hore loola jeedo marka aan statisticska u fiirinayno dhanka datada bis statistical data marka u fiirinayno marka waxaan rabnaa inaan labadooda aan si aad u sii kooban ama si aad u sii faahfaahsan aan uga sii hadalno qaybta hore statistics statistical data statisticska oo loo fiiriyay qaab xog statistic ahaan loo fiiriyay markaan fiirino isticmaal guud oo dadka dhan ama se dadka inta ugu badan waxay yaqaanin qaybta hore statistical data marka loo fiiriyo waxaan leenahay statisticska markii qaabkaas loo fiiriyo mundalaqaas ah waxa loo yaqaan statistical data waxa lagu qeexaa inuu yahay waxa loo yaqaano numerical facts xaqiiqooyin tiro la xiriira xaqiiqooyinkaas tirada ah maxay yihiin tusaale ahaan waxa loo soo qaadan karaa income-ka ay family soo gala tusaale ahaan this is a numerical fact waa xaqiiqo la xiriirta number oo tiro ah waxyaabaha loo soo qaato markaan ka hadlayno statistics as statistical data exampleska loo soo qaadan karo waxa kamid ah the age of a student age-ka ama da'da uu jiro arday uu jiro oo tusaale ahaan hadaan iraahdo arday hebel wuxuu jiraa 20 sano this is statistics as statistical data waa statistics oo loo fiiriyay xog ahaan loo fiiriyay ama se as a numerical fact loo fiiriyay waxyaabaha tusaale u soo qaato waxa kamid ah the percent boqolleyda pass ee uu dhameystiray ciyaariyahan difaac dhexe koox uga dheela tusaale ahaan koox kubadda cagta dheela uga dheelo kala tusaale ahaan maxaa waaye waa numerical fact waa markii statistics loo fiiriyo xog ahaan loo fiiriyo sidoo kale example ugu dambeeya soo qaato waxa waaye bilowga mushaar arday ka qalin jabiyay tusaale ahaan college ka qalin jabiyay oo kale tusaalayaasha noocaas oo soo qaatay marka qaabkaas oo kale markii loo fiiriyo xogta waxa qaabkaas oo kale markii loo fiiriyo ayaa waxa loo yaqaan statistics as statistical data markii loo fiiriyo statisticska marka loo fiiriyo qaab xog ahaan marka loo fiiriyo waaye tusaalayaashan aan soo aragnay marka qaybta ku xigta aan aragno oo statistics as statistical methods statisticska marka loo fiiriyo as statistical methods hababka statisticska marka loo fiiriyo qaabka loo qeexa aan fiirino ayada nafteeda marka waxa leenahay macnaha labaad ee statisticsku leeyahay waxa lagu qeexaa inay tahay fieldiga ama disciplineka la barto cilmiga naftirkiisa ayaa loo qeexaa markaan fiirino marka aan statisticska markaan macnahan u fiirino waxa lagu qeexaa sida soo socota waxa lagu qeexaa statisticsku inuu yahay koox habab ah kuwa oo loo isticmaalo in lagu soo aruuriyo lagu taxliiliyo ama lagu saafo laguna soo bandhigo xogta si go'aan loogu gaaro waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano qaybtan 1.3 section kan ah waxaan u hadli doonaa wax loo yaqaano types of statistics qaybaha uu kala baxo cilmiga statistics waxaan leenahay cilmiga statistics wuxuu kala baxaa laba qaybood oo waaweyn kuwa oo loo kala yaqaano descriptive statistics iyo inferential statistics labadaas ayuu kala baxaa aan mid uga hadalno marka qaybta ugu horeysa oo loo yaqaano descriptive statistics maxaa loo yaqaanaa descriptive statistics waxa loo yaqaanaa ama se waxay ka kooban tahay hababkaas oo loo isticmaalo in lagu habeeyo laguna soo bandhigo oo lagu qeexo xogta qaab jadwal ahaan loogu soo bandhigo ama qaab jaantus ah ama se qiyaasaha wax soo kooba wax loo yaqaano qiyaasaha wax soo kooba haddii aan si xoogay yara faahfaahsan aan uga hadlo descriptive statisticska waxayna siiyaan waxa loo yaqaano basic characteristics of data ayayna siiyaan astaamaha asaasiga ee xogta ayayna siiyaan oo tusaale ahaan haddii aan xog haysto xogtaas aan rabo inaan ogaado centerka xogaha dhaca centerka haddaan ogaado tusaale ahaan inaan rabo xogta dhacda centerka of data dhacda haddaan rabo inaan ogaado tusaale aan soo qaato mean iyo mode iyo median waxa lamid ah haddaan rabo inaan ogaado this is waxay la xiriirtaa descriptive statistics sidoo kale haddii aan rabo ama wax laga weydiiyo wax loo yaqaano variability-ga datada habka datadu sida ay kala duwan tahay oo kale haddii wax laga weydiiyo how that varies from each other haddii la weydiiyo tusaale ahaan xogta datadu sida ay kala duwan tahay oo kale haddaan rabo inaan ka hadlo
sidoo kale waxaan ka hadlayaa ama se qaybta statisticska ee la xiriirtahay waa descriptive statistics. haddii sidoo kale aan rabo in aan ogaado xogtan shapekeeda, qaabka ay xogtaani ay markii graph ahaan lasoo bandhigo xogtan qaabka ay u dhacayso qaab symmetric tusaale haddaan usoo bandhigo xog aan haysto qaab haddaan usoo bandhigo oo ah histogramkaas oo kale wuxuu isiinayaa amaan ku ogaanayaa xogtaani xog isu dhow oo normally distributed miya ama symmetric isku dheelitiran miya, xog dhinac u janjeerta miya, qaabkaas oo kale markaan rabo oo shape of data muuqaalka data xogta inaan wax ka ogaado kale markaan rabo. sidoo kale qaybta statisticska ee la xiriirta wax ogaanshaha xogta shapekeeda kale waxa loo yaqaanaa waa qaybtaas naftikeeda waa descriptive statistics. marka descriptive statistics habkaas ayaa loo qeexaa. qaybta labaad oo statisticska waxa loo yaqaanaa inferential statistics. inferential statistics waxa waaye marka qayb weyn oo statistics kamid ah taa oo la dhaqanta ama naga caawisa inaan qaadano go'aano, sidoo kale aan gaarno wax loo yaqaano conclusions ama inferences inaan gabagabooyin gaarno, sidoo kale xogtaan haysano inaan anaga xogta haysano aan ku sameyno wax loo yaqaano predictions mustaqbalka waxyaabaha soo socdo kale inaan qiyaasi karno, yani mustaqbalka inaan ku qiyaasi karno populationka aan haysano waxyaabaha mustaqbalka uu waajihi doono anagoo ku saleynayna waxyaabahaas go'aan qaadashadaas ama gabagabooyinka aan sameynayno ama qiyaasaha aan sameynayno anagoo ku saleynayna xog muunad ah ama sambal ah natiijo aan ka helnay ayaan ku saleynayna. tusaale marka tusaalahan aad ku fahmi doontaan insha Allah. tusaalahan wuxuu leeyahay tusaale waxaan rabi karnaa inaan ka gaarno go'aan aragti siyaasadeed ee arday dhigata college iyo jaamacad anagoo marka ku saleynayna sambal ah ama muunad 1000 qofood oo ardaydaas aan ka dooranay, ardaydaas kolleejyada dhigata kolleejyo yar iyo jaamacado yar arday 1000 arday ah oo dhigata haddaan anagoo ku saleynayna doorasho aan ka dooranay result aan ka helnay ayaan go'aan ku qaadan karnaa. go'aankaas markaan gaarno oo tusaalahan xogta inta 1000 qofood aan jaamacadaha iyo kasoo doorano iyo kolleejyada arday dhigata kasoo doorano dan aan weydiino ra'yigooda siyaasadeed qof kasta aan ka qorano kadib ayaan waxaan ku gaaraynaa go'aan ah ra'yiga siyaasadeed ay qabaan dhinaca u badan yahay kadib waxaan gaaraynaa go'aankii ugu dambeeyay oo conclusion ah. qaabka noocaas oo kale markaan marno ayaa waxa loo yaqaanaa waxaan sameynay inferential statistics. ama simply as a Somali haddaan ku dhahno haddii aad rabtid hadda xilligan la joogo arday jaamacadeed aad tahay ama se aad Muqdisho joogtid haddaad rabtid inaad ogaatid dadka taageersan dadku weli ma taageersan yihiin siyaasadda nabad iyo nolol oo kala rabta inaad ogaatid waxaad sameynaysaa simply waxaad dooranaysaa wax loo yaqaano muunad ama sambal gooni ayaad dooranaysaa, su'aalo ayaad ka weydiinaysaa dadka qaabka u taageersan yihiin kadibna waxa kuu soo bixisa percentage ka taageersan iyo percentage ka soo horjeeda kadib ayaad go'aan ku qaadanaysaa waxa leedahay kooxdaas ama se xisbigaas aad loo taageersan yahay ama se dadka inta ugu badan way ka soo horjeedaan labadaas natiijada ku soo baxday ayaad ku gaaraysaa go'aan ku qaadanaysaa. marka area-da statisticska taa oo la xiriirta go'aan qaadashada noocaas ah ayaa waxa loo yaqaanaa inferential statistics.